iminka waxaan toos u geli doonaa barnaamijkeenii toddobaadka xorriyadda oo maanta barnaamijkeena marti noogu yahay professor cabdiqaadir ruumi oo ah aqoon-yahan inta badan ka faalooda arrimaha taariikhda soomaaliya kuna sugan magaalada london. professor cabdiqaadir, haddaad imaqlaysid ugu horeyn kusoo dhawaaw raadiyaha iyo telefishinka soomaali weyn. bismillahi raxmaan raxiim. aad ayaad u mahadsan tahay saabir iyo bahda warbaahinta ee soomaali weyn. barnaamijkan aad ugu caygunteen ee la xiriira qodobaadka xorriyadda degdega soomaaliya. professore, soomaaliya waxaa looga dabaaldegayaa iyo guud ahaan gobolka waddanka jabuuti iyo waqooyiga soomaaliya maalmaha xorriyadda toddobaadka soomaaliya. shalay waxay ku beegneed 26 juun, maalintii markii ugu horreysay calan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay leedahay laga taago geyiga soomaaliya. maxaa keenay in soomaaliya ay madax banaani ka qaadato ayaa la dhihi karaa gumaystihii talyaaniga iyo ingiriiska? bismillahi raxmaan raxiim. waxaa xusidii qadarin mudan in dadka soomaaliyeed ee geeska afrika degan ee halgan dheer u soo galeen aanan lahaayeen gobonimadooda. marka taariikhda dib u midacsan waxaa jira bilowgii tartankii quwadaha yurub wuxuu bilowday dhammaadkii qaybta labaad ee qarnigii 19aad ee milaadiga. waxaa arrintan ka soo baxay ugu dambayntii shacabka soomaaliya loo kala qaybiyo 5 maxmiyad oo hoos yimaado gumaystayaashii yurub ee kala ahaa talyaaniga, faransiiska, ingiriiska, iyadoo ay ku lamaanaysteen quwaddii xabashida. marka taas ayaa fahamsantaha waxay keentay soomaalida in la kala qaybiyo. faransiiska ayaa la yidhaahdaa ayaa ugu soo horreeyey mandiqada geeska afrika markii hore, wuxuuna tartan kula jiray maxmiyaddii ingiriiska, gaar ahaan qaybtii ay ku lahayd magaalada cadan yemen. fahamsantaha faransiiska markuu yimid ingiriiska waxaa ugu dambeeya ayaa la yidhaahdaa talyaaniga. marka waxaa weydiisay sababta keentay. sababta kuwa waxa waaye halgankii dadka soomaalida u soo galeen sidii waxaanan lahaayeen gobonimadooda. taas waxaa tusaale kuwa ah soomaalida murtidii ee waktigaas ee ku halqabsan jirta oo ahaa gudnimo dhereg leh, gaajo gobonimadaha ka fiican. marka waa fahmi kartaa soomaalida inay doorteen gaajo, inay ka doorteen si ay ma fahamsan tahay ayagoo dhacaya gaajo ayaa nooga fiican inaan ma fahamsan tahay gumaysi ku horris jirno laakiin aan dheregsannahay. marka waa fahmi kartaa murtidaas waxay saameyn ku yeelatay dhammaan dadkii soomaaliyeed, waxayna kicisay ma fahamsan tahay dareenkii shacbiga soomaaliyeed. dhinaca kale waxaa jiray sanadkii 1960kii dabayl xorriyad ayaa ka jirtay dhammaan qaaradda afrika. arrintaasna lug ayay ku lahayd in soomaalida ee xilligaa ay qaataan gobonimadooda, maadaama waddamada afrika badankooda 1960kii xorriyadda qaateen. sanadkii 1960 waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay sanadkii xorriyadda qaaradda afrika. marka labadaas arrimoodaa isku xidhistay. arrin waxaa waaye dabaylkii qaaradda afrika ka socotay ee ahayd qaadashada xorriyadda iyo halgankii dadka soomaaliyeed ay u soo galeen sidii ay u hanan lahaayeen gobonimadooda oo ay u noqon lahaayeen dad aanan gun ahayn laakiin ah gob. professore, waxaa nooga sheekaysay sidii ay ku imaaday gobonimada soomaaliya. gobonimadeeda ma dabeeshaasay ku imaaday mase waa gobonimo xoolo iyo dhiig iyo gobonimo doonnimo lagu keenay? saabiro, waxaa jirta in gobonimada aana lagu helin dheedheel. gobonimada mar kasta waxaa la yidhaahdaa waxay u baahan tahay xoog, ayay u baahan tahay. fahamsantahay waxaa taas ku sabab adanka afka loo tuxuuxeliye uu leeyahay. gobonimo waxaa lagu kasbadaa 2 xaniyood iyo xoog. marka gobonimo ma aha wax lagu heli karayo baryo, gobonimo ma aha wax lacag lagu heli karayo. gobonimada waxay u baahan tahay inaad raadisto, waxay u baahan tahay halgan, waxay u baahan tahay dad badan inay god u galaan. marka kama maqna meeshaan halgan inuu jiray. dad badan ay god u galeen, dad badan ay naftooda u waayeen, dad badan ay u dhaawacmeen, dad badanna ay hanti beeleen. marka taa waa jirtaa oo dhinac kale. midda kale gobonimada
qaadashadeeda laba arrimood oo waaweyn ayaa sabab u ahaa. ma maqlaysaa? aad baan ku maqlaa professor, waa ku maqlaa. labada arrimood oo waaweyn waxaa waaye midda koowaad ah in soomaalida ay qaadato gobonnimo, waqooyi ilaa koof galbeed ilaa badhi kulligood way ka sinaayeen qadiyadda ah in la qaato gobonnimada. labadaas Soomaali midnimada ayay isku socdaa midnimo oo ah oo dhan ka wada dhex oo ay hiigsanayaan amoodaa ka tahay. Professore, qadkaada aad ayuu usii daciifayaa marba mar ka dambayso. haddaad imaqlaysid waxaan rabaa inaad dib noogu celisid gobonnimada. waxaad sheegtay in dib dhiig badan lagu daadiyey xornimadaas markii labada gobol ee koonfurta iyo waqooyiga sidee bay iskula shaqayn jireen labada gumaysi maadaama ay kala madax banaanayeen ingiriiska iyo talyaaniga? wax oo wada shaqayn oo weyn ingiriiska iyo talyaaniga kama dhexaynin, gaar ahaan xilliyadii dambe markii dagaalkii labaad uu dhammaaday. waxaa moodaa awooddii talyaaniga inay hoos u dhacday. ingiriiska ayaa noqday waddamadii ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunyada. marka sidaas talyaanigu wuxuu ku waayey dhul badan oo gumaysan jiray. marka arrintaas ayaa jirto. midda kale waxaa jirta arrinta ah in marka la helo qadiyad iyo hoggaan suuban, mar kastaba ummadda ma fahamsantahay midnimadeeda, iskaashigeeda, ma fahamsantaha uu cerka isku kareero. ma fahamsantahay xilligii gobonnimadana waxaad moodaa in labadaas arrimood la helay oo ahayd qadiyad ummadoo dhan ay ku midaysan yihiin, mabaadi ummadoo dhan ay ku midaysan yihiin oo ah in la hiigsanayay kulli sidii loo xoroobi lahaa. midda kale waxaa waaye ma fahamsantahay hoggaan suuban oo ujeeddadiisu ahayd hal arrintaasoo ah in gobonnimada la qaato. marka labadaas arrimood waxay keeneen ummaddii oo dhan inay midowdo, kullina hal ajenda la lahaado. ajendahaasoo ah gobonnimo. hoggaanka ayaana wuxuu ka ahaa horseed. laba hoggaan ayaa kala jiray oo garwadeenka siyaasadda ahaa waqtiyadii dambe oo dagaalkii labaad adduunyada kadib. hoggaan wuxuu ahaa hoggaankii koonfur ka jiray ee xisbigii SYL-ka uu hoggaaminayey. garwadeenka siyaasadda ayaga ayaa ummadda ku hoggaaminayay sidii gobonnimada loo hanan lahaa. dhinaca koonfurna waxaa ka jiray xisbigii SNL oo asagana dhinacaas garwadeenka ahaa sidii gobonnimada u heli lahaayeen deegaanka waqooyi ee Somaliland. marka labadaas garwadeenba waxaad moodaa inay halintoodu ka soo baxeen. ma fahamsan tahay qadiyadii ku midaysnaa. Professor, markii aan kasoo tagno qadiyadaas ah sida xornimada lagu dhaliyey, aan dib ugu soo laabano habeenkii xornimada iyo barxaddii magaalada Hargeysa 1960 markii ugu horreysay ee laga taagay calan Soomaaliyeed. xilligaas dadka joogay Soomaaliyeed dareenkooda xornimo intoo la ekaa shucuurtooda sidee ahayd? walaahi arrintaas waa arrin aad muhiimadeeda u leh. waxaa moodaa in dareenka dadku aad u kacsanaa xilligaa. ma fahamsan tahay oo dadka kulligood damcooda uu ahaa in la helo gobonnimo. waxaana ka dareemaydaa sugaantii meesha laga tiriyey oo ahaa kaanad siid kana saar oo caan noqoto cabdullaahi suldaan timcadde halkaas ka tiriyey. sidoo kale cabdullaahi qarshe raggii waqtigaas fanka hoggaanka u haayey ayagana meelahaas meeshaas waxay ka tiriyeen. ma fahamsan tahay tix badan. ma fahamsan tahay marka waxyaalihii dhibka lahaa laakiin oo waqtigaas yimid wuxuu ahaa gobonnimada maxaa lagu cabirayaa, maxaa lagu tilmaamayaa gobonnimada. siyaalo badan ayaa gobonnimada lagu tilmaamay. ma fahamsan tahay oo mar waxaa la yidhi gobonnimadu maantay geed miro ka baxayiyo ma fahamsan tahay gal xareeda noo tahay. dadkii shacbiga waqtigaas joogay xorriyad ayaa la isticmaalayay ereyga la yidhaahdo xorriyad. waa erey carabi ah. waxaa ku adkaa sidii loo fahamsiin lahaa xorriyadda waxay tahay. marka dadkii waqtigaa joogay sugaanleyda ahaa ama gabiye ama geeraarka waxay isku dayeen dadka Soomaalida in lagu fahamsiiyo ay ku karaan oo ah dhaqankooda oo xoola raacatada ah ama geelgidka ah iyo dhaqankooda beeraha. kuwa beeraha waxaa lagu fahamsiiyey oo la yidhi gobonnimadu maantay geed miro ka baxayiyo gal xareeda noo tahay. waxaa lagu fahamsiiyey inay gobonnimada tahay geed miro ka baxayo iyo gal xareed.
marka dadka beeraleyda waxay jecel yihiin gal xareed oo biyo ka buuxo oo beerahooda ay ku waraabsadaan sidoo kale waxay jecel yihiin geed miro ka baxay ay soo gurtaan sidoo kale dadkii beeraleyda ahaa ayagana waxay ku tilmaameen maandeeq waa tii meesha laga sheegay maalintaa waa taa curato mafahamsan tahay maandeeq aan maalno hasheena maandeeq mafahamsan tahay waa kaa labadaa ra'yi ayaa lagu kala cabiray ra'yiga beeraleyda oo ah geed miro ka baxayo gal xareed dadkii reer guraagina waxay ku cabireen oo ay ku tilmaameen mafahamsan tahay hasha maandeeq ayagoo dhahay aan maalno maalitaanka markaas ula jeedaan aan dheefsana faa'iidadeeda iyo waxtarkeeda brofesore xornimadii waa la qaatay gobolada waqooyi koonfurta waxay ka dambeeyeen maalmo qura waxaa la soo aaday in gobolada waqooyi ama ay garteen in ay walaalahooda ay la midoobaan ay usoo dhaqaaqaan dhinacaas iyo caasimadii soomaaliya ee muqdisho xornimadaas markii gobolada waqooyi ay garawsadeen sidee ku dhacday midowda labada gobol arrin taariikhi waaye midowga ma aha wax iska yimid hal miri wuxuu soo maray tadawur markii hore waxaa dhacay bayaankii muqdisho waxa la yidhaahdo muqdisho declaration waxa la yidhaahdo ayaa dhacay oo ay isdhaafsadeen labadii garwadeen ee siyaasadda dhinacii koonfur iyo dhinacii waqooyi walaalaheen ah markuu dhacay muqdisho declaration ama muqdisho bayaankii muqdisho kadib waxaa xigay waxa la yidhaahdo act of union mafahamsantahay sharcigii midowga ayaa xigay ugu dambeyntiina waxaa la hirgeliyey dastuurka oo lagu xusay in mafahamsantahay waqooyi koonfur ay wada noqdeen hal dowladood meeshaas ayayna kasoo dhalatay jamhuuriyadda soomaaliya marka waqtigaa ma jirin danaysi dadkoo dhan waxay rabeen in la wada midoobo waxaa dhacay dheh waxay tirsanayeen markii hore in soomaalida la kala qaybiyey oo loo kala qaybiyo gobollo mafahamsantahay waqooyi koonfur mafahamsantahay marka waxay arkayeen haddii isku yimaadaan xoogooda maskaxdooda muruqooda inay la tartami karaan dadka kaloo deegaankooda oo jaarkooda ah sidaas ayay ku tigi marka saddexdaa tadawur ayuu soo maray midowga gobolladii waqooyi gobolladii koonfur dhow waxaa la soo saaray bayaankii muqdisho oo ahaa warmufiyad ay soo saareen labadii hoggaan ee ku jiray waqooyi koonfur kadib waxaa dhacay waxa la yidhahda act of union ayaa la kala seexday mafahamsantahay oo bishii abriil ayaan rajaynaynaa lixdanka in la kala seexday kadibna waxaa yimid in la hirgeliyo dastuurkii sidaas oo loo sameeyo hal baarlamaan oo ay yeelatay jamhuuriyadda koowaad ee soomaaliya saddexdaas tadawur ayuu soo maray marka sidaas ayuu ku yeeshay waxa la yidhaahdo legitimacy ama sharciyad brofesore midnimada xilligaasi heer intee leeg ayay gaartay markii looga fiiriyo xilligaas iyo gumaystihii markuu meesha ka baxa wallaahi mar kastaba midnimada soomaalida dhaawac ayaa gaarayay mar kastaba way dhaawacmayday laakiin waa laga soo kabanayay waktigii fahamsantahay xornimada la doonayay wakti ka fiican soomaalida ma soo marin oo midnimadooda cirka fahamsantahay ay gaartay taasna waxaa keenaya wax kasta meel ayaa la iska dhigay fahamsantahay waxaa loo soo wada jeestay dhexda loo xirtay in kulli la baadigoobo sidii gobonimada lagu heli lahaa gobonimada markii la helay kadib maalimahaas ayaa waxaa bilowday waxa la yidhaahdo hunhuno ayaa bilaabatay in farka la isku fiiqo waxaa bilowday sidoo kale danaysi ayaa bilowday ma fahamsan tahay taasna waxaa ku caddaynaya rag badan oo sugaanley ah ayaa ka tiriyey gabayo badan oo leeyihiin kii meesha caddaanka ahaa iyo kuwii soo galayba waxbana iskuma keendhaamaan marka waa ujeedaa dadkii ciyowba waqti yar kadib waxaa ku dhacay qalbi jab ayaa ku dhacay oo ah wixii ay filayeen inay waayeen oo waxaa dhacday siyaasaddii in isku koobeen dadkii dabaqadda xilligaas ku jiray siyaasadda arrin kale jirto oo dadkii dhib ku noqotay dadkii waqtigaa waxay u badnaayeen reer guuraa waxaa dhib ku noqotay hataa sidii looga dhaadhicin lahaa waxay dowladnimada tahay ereyadii ugu horreeyey oo dhibka keenay hadda aan kuu sheego waxaa ka mid a dastuur waa erey af carabi ah dadkii waqtigaa jooga aad ayuu ugu adkaaday sidii loogu fasiri lahaa dastuur wuxuu yahay dastuurka aad ayuu ugu adkaatay maanta waxaa la yidhahdaa dastuurka marka la qeexayo heshiis bulsho waayo oo ummadda dhex mara waqtigaa dadkii jooga ereygaas dastuuri isticmaalaya erey af soomaaliya oo u dhigma maynaan qabin marka dastuur way ku adkaatay dadka in loo sheego waxyaalaha kaleo dadku ku adkaaday waqtigaa waxaa ka mid ah fahamsantahay deputata ninka la yidhaahdo marka deputatana waa erey talyaani ah oo xildhibaan ah xildhibaan markii af soomaaliga la qoray kadib ayuu yimid ereygaas deputata hataa dhibaato keenay
qof kastana xilligaa wuxuu raadinayay siduu dubitaato ku noqon lahaa oo meesha looga dhex arki lahaa marka waxaa moodaa ereyga dubitaato ereyga dastuur inay dhib ku noqdeen maxaa dhacay erey afshisheeye ka yimid ay ahaayeen oo ajnabi ah shacbiga soomaaliyeed oonu wax qori karin oo reer guura ahaa way ku adkaayeen inay fahmaan ma fahamsan tahay waxyaalaha ka dambeeyo oo ay baarsan yihiin tiga ninka noqonayo muxuu yahay way ku adkeen maadaama ereyga uu yahay fikirkaba fikirka ka yimid wadamada reer galbeedka dastuur uu ku adkaa sidoo kale erey ku adag dowladda lasoo gudboonaaday waxaa ahaa ereyga canshuur ayaa u adkaatay aaraan xilligaas aaraan oo micnihiisu yahay in dadku qabiilka ah deegaanka ah mafahamsantahay inay iska aruuriyeen ku dhacdo brofesore sidii markii xurnimadii aan qaadanay waxaa gobolada waqooyi lagu qaybsaday baarlamaanka soomaaliya qaab oo gobolaysi ah ma waxaa loo qaybsaday waqooyi iyo koonfur mise waxaa jiray gobollo kale qaabka qaybsiga awoodda baarlamaanka baarlamaankii koowaad waxaa jirta in loo qaybsaday waqooyi iyo koonfur fahamsan tahay xooggiisa saasuu ahaa tirada ay heleen aniga hadda sidaan u malaynaya 33 meelaha ay heleen dadka waqooyi marka waqtiyadaasi ma jirin waxyaalaha hadda shuruudaha jiro oo ah cadkeyga waa inaan helaa waxyaalahaas ma jirin dadka waqooyi ee somaliland si niyad kalgacalnimo ah walaaltinimo ah soomaalinimo ah ayay u soo qaadeen fahamsan tahay xornimadii 26 juun ay yimaadeen magaalada muqdisho unconditional shuruud la'aan ayay ku biireen walaalahooda soomaalida koonfur fahamsan maysa dhihin waxaan rabnaa inaan noo kala jirtaan waqooyi koonfur intaas ay qaadan inta aan qaadan way keeneen caasimadda soomaaliya ee muqdisho inay caasimadda noqoto ma heshiisay ku imaaday mise garashay ku imaaday mise wada hadal ama heshiisii ku timid ma fahamsan tahay dastuurka ayaana lagu xusay caasimadda inay noqoto magaalada muqdisho ma fahamsan tahay marka waxay ku timid dastuurka waana qodob sharci ah oo ma fahamsan tahay aftina waa loo qaaday dastuurka duuduub ahaan ma fahamsan tahay isagoo isku wada jira loo qaaday oo caasimaddan ay ku jirto magaalada muqdisho sidaas ayaana lagu ansixiyey dhammaanba dalka soomaaliya looga ansixiyey brofesore dalka soomaaliya wuxuu soo maray taariikyo kala duwan iminka soomaaliya iyo somalilan gobolada waqooyi waxaa taagan khilaaf midnimadii in dib loo kala gurto dowladda soomaaliya iyo dowladda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday somalilan wadahadaladii dib ayay u furmeen ma is leedahay markaa taariikh hore qiimaysay waxaad ahayd wariyii hore rugcadaa ah waxaa tahay qof taariikhda aada u yaqaano ma is leedahay siday hadda wax ku socdaan midnimadii ummadda soomaaliyeed dib ayay ugu soo laaban doontaa 60 sano kadib wallaahi 60 sano kadib in soomaaliya kala tagto waxaan ku macnayn karnaa murtidii ahayd hal bacaad lagu lisay ayay u muuqataa hadda sane halgankii lasoo maray dadka badan naftooda u waayeen dadkaasoo ka soo jeeday gobollada waqooyi gobollada koonfur ee soomaaliya maanta haddii ay joogaan aad ay uga dhexayaan xaaladdan ku sugan tahay iyo kala qaybsanaanta fahamsan tahay iyo magacnimada soomaalida ku hareeyay caalamka geedkiisa kala duwan bini aadamka intuu nool yahay rajo ma lumiyo waxaa fiican mar kastaba inaad rajo abuurto waxyaalaha loo baahan yaha waxaa ugu horeeyo in la wada hadal ayaa ugu horeeyo haddana wada hadal ayaa socdo codkeena ayaanu ku biirinaynaa in wada hadalkaas uu yahay mid hagaagsan oo loo qaaday dhinaca walaaltinimada iyo ma fahamsan tahay iyo isu soo dhowaanta dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waa arrin aad u fiican waxaan u malaynayaa wax ma aha hal beri ama hal sano ama 2 sano ku dhammaanayo laakiin wuxuu u baahan yahay in la bilaabo waa la bilaabay tadawurkaa waxaan rajaynaynaa inuu fahamsan tahay si fiican ku socdo laakiin tadawur ayuu qaadan doonaa waxyaalaha loo baahan yahay kow waxaa ka mid ah in tanaasulaad la sameeyo ma dhici karto labada dhinacba inay qola kasta ku adkaysato waxeeda waxaa loo baahan yahay tanaasulaad ayaa loo baahan yahay waxyaalaha kaloo loo baahan yahay waxaa ka mid ah is-afgarasho inuu yimaado ma fahamsan tahay oo ma fahamsan tahay maxaa dhacay hadda dadka soomaalida markaa fiirido waxaa jira waxa la yidhaha social union waxaa waaye midow bulsho ayaa jiro dadka soomaalida ama ha noqdo waqooyi ama koonfur ama bari ama galbeed way isdhexgalaan way isguursadaan way wada ganacsadaan way wada shaqaystaan wax way wada bartaan marka xoog ayuu leeyahay waxa la yidhaha social unionka midowga bulshada oo ka dhexeeya soomaalida ama waqooyi koonfur ama galbeed ama bari dhinac kastaba laakiin meesha dhibka ku jira waxa waaye dhinaca siyaasadda waaye
dhinacaasna waxaa loo baahan yahay garwadeyn ay garta ka go-an tahay fahamsan tahay oo qadiyad leh ayaa loo baahan yahay oo daacad ka ah waxa ay samaynayaan haddii arrintaa la helo waxaan hubaa in laga gungaari doono fahamsan tahay midnimada la daadiyo mida kale waxaa xusid mudan 60 sano kadib dardaaranka ugu culus oo ay nooga tageen halgamayaashii Soomaaliyeed oo soo jiray kuwa waqooyi koonfur ayagoo noogu soo gudbiyay suugaan laba dardaaran ayay nooga tageen oo maanta aan rabaa inaan xuso si ay qof kastoo Soomaali u ogaato labadaas dardaaran mar kastaba daciif ay noqdaan laakiin ma dhintaan dardaaran kuwaad waxaa waaye taageerid dardaaranka labaadna waxaa waaye isku tiirsanaan waxayna noogu soo gudbiyeen heeska Soomaaliya toosoo markayna yidhaahdeen Soomaaliya toosoo isku tiirsanaada bikiina taag daran taageera wixii labadaas dardaaran waa laba dardaaran oo mahuraan ah oo maguuraan ah waana isku tiirsanaan istaageerid labadaas haddii lasoo nooleeyo waxaan hubaa in is-afgarasho weyn uu dhexmari doono ee garwadeenka siyaasadda ee waqooyi koonfur halkaasina ma fahamsan tahay loo soo nooleyn doono ruuxiyaddii ama ruuxii midnimada ee ummadda Soomaaliyeed kaasi wuxuu ahay Professor Cabdiqaadir Rumiyo oo maanta aan ka wareysanay barnaamijka toddobaadka xorriyadda Professor aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad maanta aad noogu siisay in aan ummadda u soo gudbino taariikhdii gobonnimadii ummadda Soomaaliyeed 26 Juun iyo 1 July oo ka soo wareegtay 60 sano intaan barnaamij nimida ku kulmi doono barnaamijka waxaa maanta farsameynayay Cawad iyo Caalis waxaan la socodsiinaa anigoo Saabir Cilmi Yuusuf waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo heestii gobonimada